assalaamu calaykum bartan waa sagal tube mar walba waxaad naga heshaan wax idin xiise geliya casriga dunida maanta aynu joogno ay qayb ka tahay aaladda lagu magacaabo Facebook waa aalad ay ku kulanto bulshada waxaana Facebook guud ahaan marka loo eego dunida aynu ku noolnahay uu yahay meel ka mid ah baraha lagu madadaaliyo bulshada ama dhalinta Facebook hadaba xogagta dahsoon ee aadan ka ogay waxa qayb ka waa bar bulsho oo toos ah online waxaana aas-aasay Mark Zuckerberg bishii Febraayo 2004 waxaana ku heliyay fikradaasi saaxiibadii oo ay qura wadaageen ardayna ka wada ahaa jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka kuwaas oo kala Edward Saverin, Andrew Merkel, Dustin Moskovitz iyo waliba Chris Hughes magaca Facebook wuxuu ka mid eray suuqeed ay isticmaalaan ardayda jaamacadaha Mareykanka kamid noqoshada Facebook wuxuu kolkii hore ku koobnaa ardayda dhigata jaamacadda Harvard kadib ay fiday jaamacada kale ee dalka iyo dugsiyada sare sanadkii 2011 Facebook wuxuu u wareegay xaruntiisa dhexe ee magaalada Menlo Park ee gobolka California shirkadda Facebook waxa ay leedahay shirkado kale ee ka farcma kuwaas oo kamida Instagram oo ay ku iibsatay adduun gaaraya $1 bilyan Mareykanka Abriil 12keedii Abriil 2012 waxa ay iibsatay shirkadda WhatsApp oo ay ku iibsatay adduun gaaraya $19 bilyan Mareykanka isla Febraayo 2014keedii ay ahayd sidoo kale Oculus VR oo ay ku iibsatay adduun gaaraya $2 bilyan Mareykanka March 2014keedii Facebook waxa xanibay dawlado dhowr ah oo ay ka mid yihiin China, Iran, Pakistan, Syria iyo Uzbekistan balse wuxuu noqday December 2011 website-ka labaad ee loogu isticmaal badan yahay dalka Mareykanka Google-ka kadib shaqaalaha shirkadda Facebook waxa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan 9,199 qof waa tirkoob la sameeyay December 2014 ilaa imika waxa jira shaqaalo inta ka sii badan laakiin tirkoobkoodu aanu sax ahayn dhaqaalaha shirkadda ee la qiyaasay tirkoob ahaan lana diiwaan geliyay 2014 waxa uu gaaray 12.466 bilyan Mareykanka hantida guud ee Facebookna waxa lagu qiyaasay 40.184 bilyan Mareykanka Mark Zuckerberg oo American ku dhashay New York May 14keedii ayuu dhashay 1984 waana madaxa guud ana milkiilaha shirkadda lagu magacaabo Facebook Shirley Sandberg iyaduna waa American waxayna ku dhalatay Washington DC sanadkii 1969 waxa ay shirkaddu u qaabilsantahay xafiiska howlgallada Elliot Sharik waa American ku dhashay dalka Mareykanka sanadkii 1960 shirkadda Facebook waxay u qaabilsan yahay qaybta isgaarsiinta iyo walba xidhiidhka Facebook ayaa ah aalad ay bulshada 99% dunida casriga ah ee maanta joogno ay uga badan yihiin isticmaalka aaladaha kale marka laga soo tago aaladda lagu magacaabo TikTok Facebook waxa inta badani lagu soo bandhigaa waxyaabo u badan muuqaalo iyo qoraallo kuwaas oo ka kooban faalooyin warar iyo warbixino